sheekh waxaan ku tukadaa masjid turki ku tukato markii uu imaamku salaada ka baxayo hal mar ayay isla salaamo naqsanayaan mana sugayaan imaamka ma sax baa arrintaasi ta kale iqaamada laba ayay ka dhigaan markaan weydiiyeyna waxay dhaheen anagu waxaan nahay axnaaf ama xanafiyo maxay taasna diintu ka qabtaa Soomaalidu markay dalkeeda ka tagtay ummadaha kale dhex gashay way wareertay waxay u tageen salaadihi ay aqoon jireen oo wax badan ka duwan yihiin marka qaar ka mid ah masaajidii bay ka carareenba waxay yiraahdeen kuwa islaamka naqaanayba ma marka muslimiinta caalamku madaahib bay kala haystaan kulligood ku abtirsada islaamka maalikiyada xanafiyada xanaabilada shaafiiciyada Soomaalidu marka waa shawaafici waay marka meelaha madaahibtu ku kala duwan yihiin ayay bulshooyinka muslimiintu ku kala duwan yihiin marka غالبا uma badna waxyaalaha ay fuqahadu ku kala duwan yihiin madaahibtu wax salaada burinaya uma badna waxyaalana waa fiqh tanawuc baa la yiraahdaa kulli waa wada sax waxyaalana waa kala xoog badan yihiin labadan mas'ala hadda kamida turkidu waa madhabka xanafiga ay haystaan iyaga iyo Hindiya iyo Pakistan iyo Bangladesh iyo waa madhabka muslimiinta adduunka jooga madhabka ugu ballaaran ay haystaan waa madhabka xanafiga laana waxa weeye kaliya marka Pakistan iyo Hindiya isku dartay Bangladesh baa muslimiinta niskood ku dhawaanay marka iyo